xildhibaanadii dhawaan shaqeynay xilka ka qaadeen Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta magacaabay guddi doorasho kaas oo ka shaqeyn doona doorashada madaxweynaha Galmudug sida ay sheegeen guddiga doorashada ee la magacaabay ayaa ka kooban 13 xubnood sida uu xildhibaanada ka hor aqriyay Axmed Yuusuf iyo oo gudoomiye ku meel gaar ah oo ah xildhibaanadan xildhibaanka ugu horeeya ee guddiga doorashada xildhibaan Cabdiwali Aadan Cabdi xildhibaan Yunis Muxyidiin Xaaji Maxamed xildhibaan Axmed Sheekh Nuur Warsame xildhibaan Cabdikariim Macalin Axmed intaasi kadib ayaa xildhibaanada waxay cod gacantaa ku ansixiyeen guddiga doorashada sida uu ku dhawaaqay Axmed Yuusuf iyo xildhibaanadu markii ay u gacan taageen sidaan soo socota ayay u dhacay codkii 47 ayaa ogolaatay halna waa ka aamuso saas ay 48 ku yihiin xildhibaanada tirada guud waxa weeye 13 guddiga ahaa oo aan u soo loo doortay doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug sidaas ayuu ansax ku yahay dhinaca kale Axmed Yuusuf ayaa sheegay gudoomiye ku xigeen koowaad ee baarlamaanka Galmudug Xareed Ali Xareed uu waayay xasanadiisa xilhayn waxaan si cad u tilmaamaynaa in gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha sharci dejintu uu si sharci ah u lumiyay gudoomiyenimadiisa sida ku xusan qodobka 9aad farqadiisa koowaad xarafka A ee xoroosaadka dowlad goboleedka Galmudug oo tilmaamaya xilwaayida gudoonka haddii ay ka maqnaadaan Galmudug in ka badan 45 maalmood cudur daar la'aan isagoo uu gudoomiye ku xigeenku ka tagay 29 bishii shanaad 2017 uuna dib ugu soo noqday 24 bishii sagaalaad 2017 muddadaas ka maqnaanshaha oo dhan 117 maalmood ugu dambeyntii xildhibaanada ayaa idin u soo jeediyay qaar ka mid ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo ay ku tilmaameen in ay la kala safteen hoggaanka sare ee Galmudug waxaan halkaan ka cambaaraynaynaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qaarkood ee soo saaray bayaan aan sharci ahayn oo ay ku taageerayaan mudane Xaaf waxaan ugu baaqaynaa inay xurmeeyaan jiritaanka hay'adaha sharciga ah ee dowlad goboleedyada iyo qaanuunka ay ku shaqeeyaan مبارك محمود الشيخ آدن Universal TV عدادو